magaalada Burco waxaa si diiran lagu soo dhaweeyay 10 dhakhtar oo ka socday jaamacadda Burco isla markaana tababar u aaday dalka Suudaan. Soo dhaweynta loo sameeyay ardayda dhakhaatiirta ah ee ka tirsan jaamacadda Burco waxaa ka hadlay ardayda jaamacadda iyo dhakhaatiir, waxaanay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay maanta Burco ku soo dhaweeyaan dhakhaatiirtan ka soo laabtay tababarka ay u aadeen dalka Suudaan. madashan sharafta leh waxa weeye maanta waxaanu ku soo dhaweynaynaa annagoo ah ma garanaysaa waxa weeye jaamacadda Burco waxa weeye ardaydeedii iyo waxa weeye macallimiinteedii qaar kamid ah waxa weeye group naga maqnaa oo waxa weeye group jaamacadda ka tirsanaa oo sanadka ugu dambeeya groupkii ku jiray final yearka kulliyadda medicine-ka ayaanu halkan ku soo dhaweynaynaa waxa weeye ardaydaas iyo waxa weeye gudoomiye ku-xigeenkii gudoomiye xiis waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Burco ku soo dhawaada ma garanaysaa gobolkiini ku soo dhawaada jaamacadda Burco galabta oo 16 bishii July 2020 ah waxaanu soo dhaweynaynaa group dhakhaatiir 10 dhakhtar ah oo horkacayana Professor Xiis oo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco oo safar aqoon kororsiga dhakhaatiirtaas ay ugu maqnay dalka dibadiisa wadanka Suudaan muddo 6 bilood ah maanta galabtan aan ku soo dhaweynayno gobolka Togdheer iyo jaamacaddii iyo magaaladii Burco aan ku soo dhaweynayno waxaan dileenay soo dhawaada waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha jaamacadda Dr. Ciise iyo ku-xigeenka professorka Dr. Xiis oo hawsha badankeedii intii ugu badneed tuurta u ritay laakiin waxaan u soo baxnay inaan dareensiino jacaylka iyo walaaltinimada aan hayno ka kulliyad ahaan iyo ka arday ahaan labadaba marka waxaan leenahay soo dhawaada run ahaantiina waxaan rajeynayaa inaad aqoonta ka soo kororsateen Suudaan aqoon taalaftigeeda aan rajeynayo inaad ku anfici doontaan marka ugu horeysa nafihiina iyo dalkiina iyo dadkiinaba. gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco Professor Xiis iyo xubno kamid ah dhakhaatiirta safarka ugu maqnaa dalka Suudaan oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay tababarka ay soo qaateen iyo muddadii ay ku maqnaayeen dalkaasi. kalgacal bay noo kiingelisay inaan naga hor timaadaan duleedka magaalada waananu ka warhaynay intii aanu maqnayn warwarka aan naga qabteen iyo sida had iyo jeer noola soo xiriirseen aad iyo aad baanu ka warhaynay fursadan maanta waxaan uga faa'iideysanayaa dhakhaatiirtii barnaamijkan ka soo shaqaysay oo kala ahaa Dr. Maxamuud Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Barre Dr. Qorane iyo Dr. Cabdalle Samatar oo dhammaantood jooga magaalada Khartoum runtiina intii aanu maqnayn hadiya habeenba hawshayada aan ka nasanin ayaan fursadan uga faa'iideysanay aan uga mahad celiyo runtii isku xidhnaantiinani waa encouraging waxa weeyaan isku xidhnaantiinani dhiirigelin badan bay abuuraysaa waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo barnaamijkan qayb ka ahayd haday noqoto maamulkii jaamacadda ugu horeeyo gudoomiyaha jaamacadda Dr. Ciise maamulka kulliyadda caafimaadka dhiinka iyo ku-xigeenka dhakhaatiirtii badnayd inta nala soo xiriirisay ee dhiirigelinaysay kuwa halkan jooga dhakhaatiirta halkan jooga iyo dhakhaatiirtii Suudaan joogtay Soomaalida ahayd soo dhaweysay oo dhakhaatiirta uu ka sheegay professorku ay kamid yihiin Dr. Barre iyo Dr. Axmed Qorane iyo Dr. Cabdalle Samatar dhamaantood waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin sidoo kale waxaan ay tahay inaan u mahad celiyo oo mar walba garabkayga taagnaa waalidiintii oo ilaa iyo bilowgii ilaa iyo maantan mar walba garab taagnaa iyagana waxaan leeyahay mahadiina ma soo koobi karno waxaan u mahadnaqayaa marka koowaad dhakhaatiirtii Suudaan aan kula kulannay waxaan mar labaad u mahadnaqayaa waalidiinteedana garab taagnaa waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo garabna siisay alxamdulillah ilaahay ba mahad koowaad iskale kaasoo nabad soo celiyay Axmed Salmaan Carab Axmed Kaafi iyo Deeqa Lagis Bulsho TV Burco.